عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام أصحابتي دقاليقا كسو دوادي channel كيني وفوسي secret recipes channel maanta waxaa idin wadaa alaabtaas cajiibka ah oo af bilawga ah afurka lagu bilaaban karo insha Allah caafimaadku u fiican dheefshiidku u fiican caloosh u fiican hargab hadaa u qabtid hadii maaragtay immuunkaada daciif yahay tabartaada yar tahay soonka kari laadahay intaba waxaan ku dhahay ku anficayso insha Allah iyo bariis cajiib ah iyo hilib ari ayaa maanta idin soo galiyay inta waxaan ku soo shubay saliid markay kulaataan waxaan ku soo daray qorfe iyo filfil iyo dhageero iyo heel yar iyo xabad basbaas ah kadibna waxaan rabaa in carafta aan ka bixiyo oo saliidaas maaragtay udeega kala baxdo insha Allah waxaan ku soo daray kabsar iyo tuun kadibna cabaara maaragtay saliid kulul aan maaragtay ku qaleynaya insha Allah asxaabtida qaaliga waxaan ku soo daray basal bariiska ama bariis cad hadii ilaahay insha Allah waxa lagu kari doonaa maraq adinka ila arki doontii maraqaas aan u sameeyana inta waxaan ku soo shubay qudaar jarjar ah adina waxa haysid isticmaal karooto iyo qudaar isku darsan intana waxaan ku soo karinaa lafo oo hilib geel lafihiisa waa lafo leh lafaha marka waxa ku dhex daray cabbage iyo yaanyo iyo waxaan ku daray maraq digaag iyo cusbo iyo xawaash kadibna waxa waa cabbage-ka yaanyada karootada waxa dhan maraqay dhalayaan ayagana maahano marka halkaas ay igu sii karayeen maraq nadiif ah iga soo baxaya intana maaragtay waxaan ku soo daray xawaash wixii adi qudaar ah haystid ayaa bariis ku darsan kartaa oo gurigaada ku yaala insha Allah sida aad jeceshahay samayso hadaa rabto xawaajiyaadka bisaab kugu filan hadaad rabin qudaarta marka waa kana lafihii maraqan ka soo baxsada u jeeday maraqaas quruxda badan waxa lafaha kali ah maraqaas qurxan kama soo bixeen waxaan ku daray yaanyo si fiican aan u bislayn oo xabad ah karooto laba jab camal ah iyo cabbage aan ku daray iyo maraq digaag iyo xawaaji iyo filfil marka waxa ka soo baxay maraq culus oo bariiskeena ka dhigayo wax kaleeto insha Allah asxaabteyda marka biyaha ku soo daray bariiska ma shiilaayo waa iska ramadaan wax la shiilaayo lama rabo soo maahan heelka iyo dhageeraha iyo waa ka qabanaa maraqa asxaabta ilmooleyda fahmi karto hadii ciyaalkaada neceb yihiin inaad iska bixisaa ku fiican dad weyn hadii cunayaan laakiin waa iska dhaafan kartaa marka bariiska waan soo dhaqay cabaar yar ayuu biyo la yaalay ilaa 15 daqiiqo camal intaan dhaq ku soo siinaa daboolka u dheereynaya cusbo yarna ku soo daray xoogay dhanaanka wax ka dhimanaadeen mahano asxaabteyda qaaliga marka waa kana bariiskii inuu furfur iyo noqdaan rabaa daboolka u dheereynaa aluminum hadaa haystid ku dabool hadaadan haysanina dabka u gaab cabaar yar u kaadi ha iswareysto bariiska insha Allah inuu iswareysto wax ka fiican la waa bariis markaas iswareysto wax kala noqonaa ma fahanti marka waa kaas asxaabteyda aluminum kaasaan dhac ku siinaya ilaa 30 daqiiqo u kaadi insha Allah kadib wax kale ayuu soo baxaya furfur bariiska halkaas ayaan hawshiis uga baxnay inta waxaan ku samaysan doonaa hilibkii oo aan maraq ka saaro doono goolna u shiili doono maraqaasna waxaan ku samaysan doonaa insha Allah cadas ama lentils ama sida u taqaanid boo misir tajaalaha ah marka hilibka ayaan dabka soo saaray kadib waxaan ku daray basal waxaan ku daray toon waxaan ku daray 2 xabo karooto yar ah xawaash ayaan ku daray filfil ayaan ku daray kadibna waxaan sameeyay daboolka u dheereeyay bareesharkaas ha igu soo karo digsi caadi saahatina waqtiga bisa kugu dheeraanay isku mid waaye marka maadaama bareesh cooker aan ku saaray hilibkii 15 daqiiqo gudaheed diyaar igu noqon doonaa inta waxaan ku sii diyaarsanayaa sooski oo maaragtay oo lagu sameeyo lahaa cadaska toon iyo kabsar toon iyo basal ayaan waxaan dabka jarrac kula siiyay olive oil intan waxaan soo jartay karooto xabad baradho yar ah iyo yaanyo waa karooto baradho jab yar ah iyo yaanyo kadibna cusbada ayaan ku soo daray filfilna waan ku soo daray asxaabteyda qaaliga ah olive oil shirtaada ayaan qarraf iskula siinaya inta sirta ah ee qudaarta ah waxaan ku soo darayaa huruud yar si ay kalarka cadaskeena qurux ugu soo baxdo insha Allah وبعدين waa ila arki doontiin waxaan ku soo daray xawaash si udeeg inoogu yeesho wax la shiilay ma lahan shiilo dhan lama baahno cadasta biyo cabaar ila taalay maadaama uu rabo degdeg hadii aad degdeg u rabin caadi waaye laakiin biyo la dhigto waxa ku fiican ta karis waqti badan kaaga ma qaadanayso hilibku wuu noo soo bislaaday maraqiisi ayaan ku soo darsanay cusbo inta kugu filan qiyaasan adiga ku darso kadibna cadasta daboolka u dheereey ha ku karto hilibka ayaan rabnaa inaan inta ku soo shiilno waxaan ku soo daray maraq digaag saliid yarna ku darmaadna arkeen asxaabteyda qaaliga ah kadibna waxaan rabaa hilibka inaan soo shiilo oo biyihii lagu soo kariyo oo jirkiisa ka baxo oo qaleesmo dhanaan iyo dhanaan yeesho insha Allah hadii kale sidiisa waa saga cuni kartaa laakiin xogaa testi dhan ma yeelanayo maahano
marka hilibka zaaid uu bislaado waa arkaysiin ilaa xad ayaan soo qaliyay soo shiilay asxaabteyda sahan ayuu noogu diyaar yahay bariiskeeni waxaan dib ugu laaban doonaa cadaskii aan karinaynay iyo xaalkeeda meeshuu maraayo haddii ilaahay insha Allah hilibkeena saan noogu diyaar yahay horena waa arkaysiin waa loo soo bursiyo qudaara lagu soo bursiyay maraq digaag yar dhac lagu siiyay kadibna saliid yar waa la shiilay sidaan qurux badan ayuu noogu soo baxay cadasteenina waa tanaa waa noo diyaar waxaa dhiman inaan shiidno haddii makiinada cabitaan ku taalo ku shiido haddii mid gacanta ku taalo ayaa ka fudud digsiga dhexdiisa ku shiidanaysaa si uu kugu soo baxo soos kaali iska arag haddii aadan kala jeclayn sidaan waa isaga cuni kartaa laakiin ma ku fiicno maahano wax smooth oo kaali iska arag hal raba marka waa kan asxaabteyda qaaliga saana u soo shiidaya haddii ilaahay idmo faarahaneed waxaa in ka dhiman oo nidin tusin bariiska cabbage yar gooni loogu sameeyay haddii dadka qaar ay ma ku cuni karaan bariiska sidiisa qaleel dooqaaday ku xirantahay familigaada sidoo jecel yahay inta waxaan kusoo dhalaaliyay butter kadibna waxaan kusoo daray organa yar hadaa haysato xawaash duub yar ku darsan kartaa hadaa rabto kabsar caleen yariis ku darsan kartaa waxaan kusoo daray barbarooniga budada paprika powder kadibna subagii waa soo bursiyay caraftiisa markay soo baxdayna waa ka dajiyay dabka waatanaas cadaskeeni maaragtay kadibna waxaa korka uga shubi doonaa subagii aan soo dhalaalinay carfayay bataga ahay haddaa hargabka qabto 2 maalin haddaa cabto hore uga boodi doontaa insha Allah intaada wax cunin ka hor afurka haddaad ka toorato baaquli yar oo alaabtaan waa iska dareemi doontaa horaa ka dhaqaaqaysaa ma fahanti caloosha hore ka shaqeynaysaa musqusha la aada insha Allah xilliga ramadaanka aad iyo aad ay dadku anficaysaa waa kana hilibkeeni inta ayaan ugu soo gadiyay asxaabteyda qaaliga bariiskeena sidoo kale inta ayaan ku soo guray wixii kana laabka ay ku jiraan insha Allah fiidiyogan intaan ayaan idin duubi karooday intaanba waa muhiim wixii kale in ka dhiman insha Allah waa idinku soo dari doonaa wixii codsigeena igu soo gudbiya qaybta commentiska sidaas quruxda badan ay ku soo baxday macaanka ana inko aragan waa iga haysaan asxaabteyda qaaliga fiidiyoyaal badan ayaa idin soo socdo isoo duceeyo fiidiyoyaasha way iska duuban yihiin laakiin ina idin soo geliyo ayaa caajis iga saaran yahay insha Allah ina edit gareeyo waa kana cadaskeena saana ayaa usoo diyaarsanay baaquligaas ku soo shubo liintaada dhac ku siiso iska cabaan ku dhaha wallahi madiinaysid cusub badan haysaga daran weligaada liintaada ku miiro inta cusub badan ku dar lahayd meel fog cusub ku darso waxaan ku dhahaa hadaa rabtid mandhaasigaada isaga dardaaro hadaa rabtid maaragtay bariiskaada xitaa waa ku cuni kartaa sideeda ku cabi kartaa root hadaa haystid waa ku cuni kartaa bariis cadaa ku cuni kartaa wax ay diideyso malahan ku dhahay waa kaas asxaabteyda daawasho wanaagsan ayaa idin leeyahay ramadaan kariim ramadaan mubaarak ilaahay noogu dambi dhaaf ramadaanka tobankiisa dambe waxaa idin leeyahay waa ku mahadsantihiin daawashadiina warkay aan ku badinine waa kaas kasoo tuur idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fi amaanillah till next video insha Allah